doorashada golaha Janiibta oo shantii sano marka dhacda dalkan Jarmalka ayaa sanadkan Soomaalidu guulo waaweyn ku soo hoysay gaar ahaan gobolka Hayse oo dhowr magaalo ay ka soo baxeen xildhibaanada metelaya dadka Janiibta ee ku dhaqan dalkan Jarmalka magaalada Kassel oo iyadoo ka mid ah magaalooyinka ugu weyn Soomaalidu ku badan tahay dalkan ayaa sanadkan waxa ka soo baxay 9 xildhibaan oo ka mid noqon doona 7 xildhibaan ee golaha Janiibta magaaladaasi taasoo noqonaysa Soomaalida ugu badneed ee golaha Janiibta ay ka soo baxda gobolkan Hayse gaar ahaan magaalada Kassel xildhibaanada golaha Janiibta ee Soomaalida iyo odayaasha magaalada Kassel ayaa kulan iskugu yimaadeen markii ugu horeysay waxa laga hadlayay sidii loo dhiirigelin lahaa xildhibaanada Soomaalida iyo inay isku duubnaadaan oo halkaas lagu soo jeediyay waxaana odayaashu ugu baaqeen inay xildhibaanadan ay wax ka qabtaan caqabadaha Soomaalida ku haysta magaalada Kassel ee wadankan Jarmalka anagoo ah dadkii wakiilada ahaa ee loo doortay golaha Janiibta ee magaalada Kassel iyo odayaashii magaalada Kassel iyo hagaradkii magaalada Kassel oo dhameystiran ayaan halkaan maanta wada joognaa ujeedka aanu halkaan u wada joogno waxa weeye in aanu wada isla dardaaranno waxyaalihii dhacay iyo doorashada iyo wixii dhamaasida u dhacday aanu ka wada sheekaysano isku mahad celino 37 kursi baa matalaysa inaan 9 xubnood ku yeelano 4 meelood meel runtii waa wax aad loogu farxo oo positive ah anagu run ahaantii ma nihin dadkii ugu fiicnaa ama dadkii ma garanaysaa ugu mudnaa ee la doorto laakiin waxaanu nahay dad isu arkay inay wax bedeli karaan ama ay wax qaban karaan aad baan ugu faraxsanahay sharaf aan tahay inaan ka mid noqdo 9 xubnood ee Soomaalida soo baxay oo markii ugu horeysay qoomiyadda Soomaalidu ay 9 qof ka soo saaraan golaha Janiibta waa wax qabad aad u weyn shalay meel baynu taagnayn maanta meel baynu taaganahay shalay ololaynu ku jirnay dadka codkooda aynu weydiisananay maanta waxaynu u baahannahay maadaama Soomaalidu xisbiyo kala duwan ka soo baxeen in gudaha markaynu tagno wada shaqaynteenu ay ka xooganaato markii aynu dibadda joognay waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii sida hagar la'aanta inoola soo shaqeeyay intii ololuhu aynu ku jirnay dadkii codkooda bixiyay iyagu waajibkii lagu lahaa gutay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Fartuun Cabdulaahi halkaan waxaa rabaa inaan ka salaamo Soomaalida gaar ahaan reer Kassel waxaa rabaa inaan ugu mahad celiyo doorashada sida ay noo doorteen waxaan rajeynayaa inaan si fiican u matalno gaar ahaan habeenka Soomaaliyeed oo halkaan ku nool waxaa zaaid farxad wanaagsan u ah sanadkan in 2 gabdhood ay ku jiraan aniga iyo Maryan Axmed ugu horeen waxaan doonay halkeen aan ugu mahad celino saan tareenka ugu aanu maanta dadkii laantooda aanan halkan aanan xildhibaanada golaha deegaanka ee Janiibta noqon magaalada Kassel dad yow kala duwan Kassel ku nool si gaar ah waxaan ugu mahad celinaa dadkii sharafta lahaa Soomaalida sida fiican oo la shaqeeyay siga hagar la'aanta insha Allah waxaan rajeynaynaa in aan noqono kuwa si dhab ah idin matalo oo aan maaragtay howlihii maaragtay ka Soomaali ahaan nooga aadana in raad hooska ka soo dhicino aan ka seexan ka waana loo baahan yahay in maaragtay dadka Soomaaliyeed ay noqdaan dad isku xiran oo midaysan oo maaragtay ka qayb qaata siyaasadda ay wadanka ay la nool yihiin waa markii ugu horeysay taariikhda in la helo dhalinyar firfircoon oo dumar iyo rag isugu jiro oo u soo taagan inay dadkooda wax qabtaan markii aan soo degaynay wadankan 20 sano ka hor maysan lahayn wax nidaam ah ama xitaa lagu fikiri karo in dad Soomaali ay meel ka qayb galaan dhinaca kale magaalooyinka Darmstadt Mulheim iyo Schwega oo iyaguna ka mid ah gobolka Hayse ayaa waxa ka soo baxay xildhibaano gaaraya 5 xildhibaan oo xubnaha Soomaalida ka mid noqon doona golaha Janiibta ee ku dhaqan wadankan Jarmalka gaar ahaan gobolka Hayse geesta kale waxa markii ugu horeysay gabadh Soomaalida ee ka soo baxday baarlamaanka gobolka Hayse gaar ahaan magaalada Wiesbaden waana markii ugu horeysay Soomaalidu si weyn uga dhex muuqato siyaasadda wadankani waana markii ugu horeysay Soomaalidu si weyn uga dhex muuqdaan siyaasadda wadanka iyo golayaasha kala duwan ee dalkan Jarmalka waana markii ugu horeysay Soomaalidu si weyn uga dhex muuqdaan siyaasadda wadankan iyo golayaasha kala duwan ee dalkan Jarmalka Cabdirashiid Caynte Home Cable TV wadanka Jarmalka hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger ma haysaa
xaajo tiyarad iskuulkii maad geysay haye charger maysa charger casuumadii baan joogaa casuumadii sug halo charger maysan wanniba maxaa kaa qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chargerna waadna weydiinaysaa aniga ha ila yaabina waxaan isticmaalaa adeega muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya waxaad isticmaali kartaa adeega muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya hadal oo hadaalin